maanta ay taariikhdu tahay 30 bishii 6aad 2018 waxaan xafiiska xiriirinta guud ee dawladda Puntland ku qabanaynaa shir saxaafadeed ujeedkiisu uu yahay sida ku cad qoraalka referkiisu yahay ama tixraaciisu yahay wa/m/dbl/710 maana qoray 24 Juun 2018 ujeedadiisuna ahayd war saxaafadeed ka soo baxay wasaaradda maaliyadda sidoo kale qoraal ka soo baxay isla wasaaradda maaliyadda tixraaciisu yahay wa/dbl/705 lana qoray 25 ujeedadeedu ahayd soo gudbin dacwad ladi ku ah barkhadle aadan muuse inaxawa cabdulaahi cali ku dhashay degan gaalkacyo ahaana xisaabiyihii hore ee wasaaradda maaliyadda sidoo kale anoo tixraacaya qoraal ka soo baxay maxkamadda darajada koowaad ee gobolka Mudug lana qoray 25 bishii 6aad 2018 kaasoo ujeedadiisu ahayd soo qabasho eedeysane barkhadle aadan muuse kaasoo ku eedeysan luusansho hanti dowladeed. haddaba qoraaladaas kadib xafiiska xiriirinta marka uu soo gaaray waxaa maqaal nagu ah ama aan xogta hay'adaha sirdoonka soo gaarsiiyeen in eedeysanahaas uu dalka ka baxsaday sida awgeed waxaanu hay'adaha amniga ee dawladda federaalka hay'adaha amniga ee maamul goboleedyada dalka u soo gudbinaynaa in ninka sawirkiisu uu halkaan ku cad yahay ama halkaan warqadda uu ku yaalo ciddii aragta ay soo gacan geliso dawladda Puntland ninkaas waa eedeysane hanti tiro badan oo shacabka iyo ciidanka iyo shaqaalaha gobolka Mudug loogu talagalay ayuu si sharci darro ugala baxay khasnada dawladda. sida awgeed waxaan ka codsanaynaa dhammaan hay'adaha amniga ee heer federaal iyo hay'adaha amniga ee heer maamul goboleed iyo dadweynaha Soomaaliyeed ee jecel cadaaladda iyo sharafta ummadda Soomaaliyeed in mas'uulka halka ku sawiran oo uu ahaa xogayihii ama xisaabiyihii wasaaradda maaliyadda ee gobolka Mudug kaasoo lagu eedeynayo inuu hanti aad u tiro badan ka dhacay oo waliba ahayd mushaharooyinkii shaqaalaha dawladda ee gobolka Mudug ka howlgala ha noqoto ciidan ama ha noqoto shaqaalaha caadiga ee gobolka Mudug ninkaasu si aan sharci ahayn wala baxay ka bacdina uu fakaday. sida awgeed cid kasta oo aragta oo maqasho meel joogo waxa dawladda Puntland oo magaceeda ku hadlaya ka codsanaynaa in ay sharciga gacanta u soo galiyaan. ninka magaciisa waxa la yiraahdaa barkhadle magaciisa waxa la yiraahdaa hadaan ku xisho barkhadle aadan muuse inaxawa cabdulaahi cali ku dhashay gaalkacyo deganaana gaalkacyo.